madaxweynihii shanaad ee dalka Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan taariikhdiisii oo aan soo koobay ayaan halkan idinku hayaa aniguna waliba barqiye. Cabdiqaasim Salaad Xasan waxa uu ku dhashay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud ee bartamaha dalka Soomaaliya sanadku markuu ahaa 1941 wuxuu bartay Quraanka isaga oo yar kadib waxbarashadiisii waxa uu ka bilaabay magaalada Gaalkacyo. waxbarashadiisii sare waxa uu ku dhamaystay magaalada Muqdisho. wuxuu waxbarasho u aaday dalkii midowgii Sofiyeetiyeed sanadku markuu ahaa 1964 isaga oo ka bartay sayniska. shahaadadii heerka labaadna waxa uu ku bartay biologiga Moscow State University. kadibna waxa uu ku soo laabtay dalka waxaana uu xilkii ugu horeeyay loo magacaabay sanadkii markuu ahaa 1973 isagoo markaa noqday wasiirkii warshadaha isla markaana wasaaradda fara badan xilal ka soo qabtay intii u dhaxaysay 1973 ilaa 1991 xilalkii uu soo qabtay waxaa ka mid ahaa wasiirka warfaafinta, wasiirka maaliyadda, wasiirka waxbarashada, wasiirka arrimaha gudaha iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenkii labaad ee dalka. madaxweyne Cabdiqaasim waxa uu ku soo biiray siyaasadda isaga oo da'yar wuxuuna noqday wasiirkii ugu da'da yaraa ee soo mara taariikhda Soomaaliya waqtigaasi. madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan markii ay burburtay dawladii Soomaaliya waxa uu aaday dalka dibadiisa isaga oo degay dalka Masar. haddaba doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday 25 August 2000 laguna qabtay magaalada Carta ee dalka Djibouti ayaa madaxweyne loogu doortay Cabdiqaasim Salaad Xasan waqtigaasi la socda qaybaha dambe oo xiiso leh.